لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كنولينت إسلامك. موضوع مانتا يو ككحجة بحوي خلافة إسلامك. سيدي ayay u soo noqonaysaa khilaafada islaamku. waxaan ognahay markuu geeriyooday rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam inay khilaafa ka dambeysay guud ahaan loo yaqaano khilaafatu raashida, khilaafadii hanuunsanayd ee afarta ahaa: abubakar, cumar, cusmaan iyo cali, dhammaantood alle raalli ka ahaadeen. marka khaliif jiro waa hoggaanka muslimiinta isku xidha, mideeya diin oo dhan iyo gaar ahaan diinta islaamka. khilaafadu aad ayay muhiim u tahay. khilaafada islaamka waa nidaamka barakaysan ee alle ku mideeyey muslimiinta markuu geeriyooday nabigeenu sallallahu alayhi wasallam, taas oo midaysay meel ay joogaanba, hoggaan u ahayd, marjac khilaafka ka saara u ahayd, kuna hanuuninaysay dariiqa toosan. haddaba khilaafadii islaamku ma waxay ku ekayd wakhtigaa hore ee afartaa khaliif, mise mar labaad ayay soo noqonaysaa? haddii ay soo noqonayso, sidee ayay u soo noqonaysaa? miyaan maanta muslimiintu khaliif u baahnayn? qof kastaa wuxuu ku odhan waynu u baahannahay khaliif awooddeena mideeya oo ina xoojiya, khilaafaadka inaga saara, inoo noqda marjac aynu ku kalsoonnahay oo inagu haga dariiqa toosan. marka haddii aynu u baahannahay, sidee bay u soo noqonaysaa? miyaa la dooranaya? haddiise la dooranayo, waa in muslimiinta oo dhammi isu timaado oo qolo kasta cid ay ku kalsoon yihiin ay soo wakiilato oo doorashada ay kasoo qayb gasho. su-aashu waxa weeye, sidee qof qura oo dhammaantood khaliif u noqda ay ugu heshiin karaan markaynu ognahay in 73 firqadood ay u qaybsan yihiin oo ay isku khilaafsan yihiin fahamkii diinta, fahamkii qur-aanka, fahamkii axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam? khilaafka ka dhaxeeya sunniga
iyo shiicad oo kaliya eeg inta uu leegyahay sunniga dhexdiisa khilaafaad baa kasii dhexeeya shiicaduna sidoo kale dadka badankoodu way ka warqabaan khilaafaadka ka dhex taagan muslimiinta xagga fahamka diinta fahamka qur-aanka iyo axaadiista waxa kale oo aan ognahay in farqado badan ama kooxo magaranaysa ay jiraan ku hawlan sidii ay u soo celin lahaayeen ama ay u dhis lahaayeen khilaafada islaamka haddana bariga dhexe qaar ayaa ka soo baxay wadamada carabta oo ku hawlan inay dhisaan dowlad islaam ah hase ahaatee mar walba su-aasha taagani waxa weeye sidee bay u soo noqonaysaa khilaafada islaamku aan u noqono rasuulkeena sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam miyaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam inooga warramay khilaafada islaamku sida ay u soo noqonayso waa inooga warramay waxaanu inoogu sheegay axaadiis laga soo wariyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam inay soo noqon doonto aakhira zamanka haddii alla ka dhigo mowduucan ayaan ka hadli doonaa si loo fahmo sida ay u soo noqonayso khilaafadii islaamku oo aan qofka muslimka ahi marba mid meel calan ka taagtay aanu iska raacin una qaadan inuu soo celinayo khilaafadii islaamka gaar ahaan waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada si ay u ogaadaan fahamka saxa ah ee waafaqsan kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiista rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam marka u horeysa waa maxay macnaha ereyga khaliifa marka qur-aanka la raaco khaliifa waa qof cid kale ka wakiil ah khaliifa waa qof cid kale ama qof kale wakiil ka ah marka xagga diinta laga eego ee qur-aanka la raaco ereyga khaliifa laba macne ayuu leeyahay macnaha koobaad waa addoon alla idmay alle soo diray u soo diray inuu dadka ku toosiyo dariiqa toosan ee alle marka ambiyada iyo rususha alle soo diro dhammaantood waxaa lagu magacaabaa khaliif alle waayo alle ayay wakiil ka yihiin waxay keenaan ama dadka faraan ama sameeyaan waa hanuunka alle faray una waxyooday maxaa marka daliil u ah in ambiyada alle iyo rusushu ay yihiin khaliifatullah khaliif alle aan u noqono qur-aanka nebinimadu waxay ka soo bilaabantay nebi aadan waa qofkii u horeeyey ee alle idmo waxa alle markuu malaa'igta u sheegay inuu nebi aadan khaliif ka yeeli doono uu qur-aanka alle ku yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa waa suuradda albaqara aayadda 31 macnaha aayaddu waxa weeye waxa alle ku yidhi malaa'igta inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaan ka dhisayaa dhulka khaliifo waxaan idmayaa weeye khaliifo waa nebi aadan calayhi salaam sidoo kale ayaa ali nebi daa'uud calayhi salaam isagana alle ku yidhi waxaan kaa yeelnay khaliif
dhulka ayaanu khaliifkaaga yeelnay waxaa la quraanka ku yiri a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim yaa daa'uudu inna ja'alnaaka khaliifatan fil ard wa suurada saad aayada 27 marka quraanka la raaco khaliifatullaahi ama khaliifka alle waa nabiga alle idmo soo diro ambiyada oo dhamina waa khaliif alle macnaha hore ee ereyga khaliifa marka waa nabi alle soo diray macnaha labaad ee ereyga khaliifa xagga diinta waa marka nabigan alle soo diray geeriyoodo haddii alle markaa aanu nabi kale idmin qofka loo doorto inuu hogaamiyo u noqdo imaam u noqdo jamaacadii nabiga rumaysay ama mu'miniintii muxuu ahaa aamintay nabiga aamintay ayaa la yiraahdaa khaliifa marka sidan waa khaliifkii nabiga waa adoon saalix ah oo wanaagsan oo alle dhowray oo loo doorto maqaamkii ama mansabkii nabiga sida markuu geeriyooday rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam loo doortay Abu Bakar kabacdina Umar kabacdina Usmaan kabacdina Ali dhamaantood alle raaliha ka noqday khaliifka marka nabiga ka dambeeya waajibaadkiisu waa kuwii nabiga inuu muuminiinta mideeyo oo hoggaan u noqdo marjac u noqdo kitaabka baro kuna hanuuniyo dariiqa toosan nabi kasta marka waxaa ka dambaysa khilaafo sii fidisa dacwadiisii sida rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam laga wariyay in uu yiri waa xadiis muxuu ahaa kansur umaal ah waxaa rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam laga wariyay in uu yiri nabi kasta waxaa ka dambaysa khilaafo waxaanu yiri ما كانت نبوة قد إلا تبعتها خلافة وكان زر عمال وهي معناها حديث كحويه ما تشرو نبي نمو أما النبي عن خلافه كدم بين يعني ما كان النبي قريودو خلافه أياك النبيسة مركا لبضا معناه ayuu leeyahay ereyga khaliifa nabiga alle soo diro ee alle idmo waa khaliif alle oo alle ayuu wakiil ka yahay marka nabigu geeriyoodana khaliifka la doortaa waa khaliifatu nabi waa khaliifkii nabiga ayuu wakiil ka yahay waxa la isweydiin karaa maxaa looga baahan yahay nidaamka khilaafada waa khaliifka ka dambeeya nabiga waxaad ogaataa in alla xakiim yahay wax kastoo alla sameeyay xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirta in nabiga khaliif ka dambeeyo waxa weeye alla wuxuu soo diraa ambiyada inay dadka islaaxiyaan baraan akhlaaqda wanaagsan iyo sida ugu haboon ay tahay inay alle u caabudaan xaqooda isu siiyaan kuna toosiyaan dariiqa toosan hase ahaatee bacdama ambiyadu ay bashar yihiin tahayna in ay geeriyoodaan marka waqtigoodu dabcan uu gaadho ayaa alla qadaray in markay geeriyoodaan dacwadii ay alle ka keeneen
sii socoto oo sii noolaato sidaas awgeedna waxaa ka daba dhashaa khaliifo si ay u sii wadaan dacwadii nebiga waajibaadka khaliifkuna waa kuwii nebiga sida khilaafadii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ka dambeysay ee khilaafatu raashida يعني خلافة الراشدة waxay gudanaysay waa waajibaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay sii wadaan dacwadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam diinta islaamka sii fidiyaan dadka diinta baraan hoggaanna u noqdaan isku xidha oo mideeya sidaas awgeed nidaamka khilaafadu waa farac ka mid ah barakada nebinimada waayo waajibka khaliifku waa waajibkii nebiga sidee khaliifka loo doortaa marka nebigu geeriyoodo ma dadkaa doorta mise alle ayaa doorta aan u noqono qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم على آيات يري على آيات أبلغ قاعدة مؤمنين عمل كوناكسن سميسا إنه يلي دونه خليف إنه خلافة يلي دونه mu'miniinta kuwa u horeeyey ee aayaddu ka hadlaysaa waa asxaabtii nebigeena rumaysay sala allahu calayhi wasalam macnaha aayaddu waxa weeye markay dad suuban oo wanaagsan jiraan oo mu'miniin ah sidii asxaabtii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam oo alle kaba ku jiro sameeyo camal wanaagsan oo saalix ah alle wuxuu u yeelaa khilaafo alle khaliif ayuu u yeelaa sidii uu ugu yeelay asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nebigeenu geeriyooday su-aashu waxa weeye khaliifkan muuminiintu ay dooranayaan marka nebigu geeriyoodo ma alle ayaa doorta haddii si alle doorto see alle u doortaa ma toos buu u magacaabaa maya alle khaliifka toos uma magacaabo alle mu'miniinta ayuu ku sharfaa inay khaliifka doortaan waayo waxay dooranayaan ka ugu taqwada badan ee xilkan gudan kara inkastoo asxaabtii rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam dooranaysay khaliifka abubakar dooratay oo cumar dooratay oo khulafadii kale ay cusmaan dooratay oo cali dooratay haddana alle ayaa qulubtooda ku hanuuninayey waxaa markaa la odhan karaa xaqiiqa ahaan alle ayaa doorta waajibka khaliifkuna san marka hore idiin sheegay waa waajibkii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waana sida aayadda ku cad in alle isu nisbeeyey in uu alle mu'miniinta u yeelo khaliif layastakhlifannahum fi lardi alle isaga ayaa isu nisbeeyey oo yidhi waxaan u yeelnaa khaliifo inkastoo ay mu'miniintu dooranayaan haddana alle isaga ayaa isu nisbeeyey marka waxaad arkaysaa xaqiiqa ahaan in khaliifka alle uu doorto haddaan macnaha aan ku noqdo muxuu ahaa aayaddan uu ilaahay yidhi layastakhlifannahum fi lardi macnuhu waxa weeye mu'miniinta ayaa dooranaysa khaliifka sidii muxuu ahaa asxaabtii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay u doorteen abubakar
laakiin alle aayadan waxa uu leeyahay layastakhlifannahum fi lardi waxaan u yeelnaa khaliifo marka ilaahay baa u yeela inkastoo muuminiintu ay dooranayso inkastoo asxaabtu ay dooratay muxuu ahaa abubakar ay dooratay haddana waxaad arkaysaa inuu ilaahay doortay intaan ka soo hadalay waxaan ka fahmaynaa in khaliifatullah khaliifka alle yahay nebi khaliifatullaahi khaliifka alle inuu yahay nebi alle doorto khaliifka muuminiintii rumaysay nebigu doorataana yahay khaliifatu nebi sida muxuu ahaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali loo doortay u fiirso mu'miniin midaysan oo alle kabaq ku jiro ayaa dooranaysa ma aha firqada ma aha waxaa kale aan ka soo hadalnay in alle u ballan qaaday mu'miniinta inuu u yeeli doono ama inuu u yeelo khilaafo mar kasta oo shuruudan aayaddu inoo sheegtay ay buuxiyaan mar kastoo ay jiraan mu'miniin samaynaysa camal wanaagsan alle wuxuu u ballan qaaday inuu u yeelo khilaafo ama uu khaliif muxuu ahaa alle u yeelo barakada khilaafada waxaa ka mid ah inay muslimiinta midayso oo hoggaan u noqoto in macnaha saxa ee kitaabka qur-aanka muxuu ahaa ay baraan iyo sunnaha rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam in islaamka ay ka difaacaan cadowga islaamka inay diinta islaamka fidiyaan oo gaarsiiyaan ciddii weli aanu gaarin kuna qanciyaan kuwa diimaha kala haysta in dariiqa toosan uu yahay diinta islaamka inay u duceeyaan oo alle u baryaan mu'miniintan muxuu ahaa magaranaysa ay khaliifka u yihiin in khaliifku uu xalilo haddii khilaaf soo dhex galo muslimiinta ama ay isku qabtaan fahamka diinta maanta marka laba sheekh isqabtaan yaa kala saaraya ma jirto cid kala saari kartaa dadkuna qofba ka uu doono ayuu raaci su-aashu waxay tahay haddii muslimiinta midba ka uu doono uu raaco ama haddii sheekh kasta uu koox ka haysto muxuu ahaa muslimiinta uu ka haysto kee markaa matala mowqifka saxa ee diinta islaamka midna ma matalo waayo ma jiro sheekh la isku wada raacsan yahay fahamkiisa waa sababta loogu baahan yahay khaliif lagu wada kalsoon yahay oo marjac u noqdo muslimiinta yani meel ay joogaanba oo khilaafaad markuu soo dhex galo kala saara khaliifkana alle ayaa hanuuniya sida rasuulkeenu uu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam facalaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa'i raashidiin almahdiyiin waa musnad axmed weeye macnaha xadiiska oo ah waxaan idinku ogahay idin faray inaad ku ekaataan sunnahayga iyo sunnaha khulafada raashidiinta ah ee hanuunsan waxaa xadiiskan ku cad in khaliifka alle hanuuniyo waayo marka horeba waxaa lagu doortaa qadarka alle haddaan soo koobno waxaan ka soo hadalnay in ereyga khaliif leeyahay laba macne marka qur-aanka la raaco khaliif alle waa khaliifka alle doorto una waxyoodo waana nebi ambiyadoo dhammina waa khaliif alle macnaha labaad waa marka nebigu geeriyoodo addoonka muuminiintu u doorato inuu hoggaan mideeya u noqdo sidii abubakar radiallahu canhu loo doortay markuu nebigeenu geeriyooday sala allahu calayhi
wasalam. waxaan ka soo hadalnay in nebi kasta ay khilaafo ka dambayso. waxaan ka soo hadalnay in alle u ballan qaaday mu'miniinta mar kasta oo ay jiraan mu'miniin samaysa camal wanaagsan in alle u yeeli doono khilaafo, in alle khaliif u yeeli doono, in khaliifku yahay hoggaanka mu'miniinta. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen in khaliifka alla doorto, marna toosu doorto oo ah nebiga alla soo diro, marna alle mu'miniinta ku sharfo inay doortaan. hase ahaatee lagu doorto qadarka alle oo la odhan karo xaqiiqa ahaan alle ayaa doortay. waa sidii abubakar, cumar, cusmaan iyo cali loo doortay, dhammaantood alle raalliha ka noqdeen. barnaamijka dambe waxaan kaga hadli doonaa khilaafada islaamku ma waxay ku ekeyd 40 khaliif ee hore ee ka dambeysay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam, mise mar dambe ayay soo noqonaysaa? hadday soo noqonayso sidee bay u soo noqonaysaa? wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني.